Universal TV وتي أبن كان وين وقت غالي عن سيسي أنا كنيو شو الصومالي وأقدر أبغى وصلته حتى في تعرفين كان بصدير هذا بصديرنا واحد كان في مجالين مشو وكور عن مشون الصوماليين ولكن يشوف بصدير عاد كان في أسود دويين يسلي وأركين. بسم الله. horta ugu horeeyna Universal TV waa ku dhawahay aad baa mahadsantihiin haddaan u galo soo dhaweyntii Basadiir hadee run ahaantii si wanaagsan baa loo soo dhaweeyay bulsho fara badan baa soo dhaweysay awalna bulshadu iyaga codsaday inaan keeno markaan leeyahay iyaga bulshadu codsaday waxaan ula jeedaa waxa la meeshii qabiilo nin ka joogo waa joogaan meeshay laba ka joogtana waa wada joogaan ugu yaraan beejkay waxa ku xiran 600 iyo santi marka hadii ay bulshada Soomaaliyeed ay intaas codsadeen in la keeno Basadiir Soomaaliya ka hor markii uu codsaday in la geeyo Soomaaliya dhaqaalaha laga saaciyo intaas waxay u codsadeen inaan dalka keeno marka intaas Soomaali bay matalaysay laba qof baa Soomaali matali karta iska daa 600 oo kale marka rabitaankoodii iyo codsigoodii baan dalka awalna ku keenay haddana ay ku soo dhaweeyeen شو سماه أمسي بصدير ما قفك سامين تلف وفرحان هذا الله والله أبو فرحان من نقطة السواحية في عن حيوان كان هذا الله والله يا تنتا بس ما كان في رسمي فعلك وسمينا هاي أياد هذا الله هذا سايو ساسة قسمة سافر من غلبة كورنا يا لغة السواحيلية ووضع قانا لكن قريب كم ذا وانقرنيا سداسو أيت هاي Basadiir hadalkiisa iyo muuqaalkiisa meesha ku wajahna midna kuma soo gudbiyaan riwaayad gaar ah ka sameeyaa film gaar ah ka sameeyaa ki anigu markaa aan israahdo waad ka dhigaysaa baan u ekaysiya dadka Soomaaliyeed ay ku dhalinayaan Basadiir ma aqoon wax bulshada Soomaaliyeed ay ka faa'iideyso marka halka meeshaas lagu jeedinayo ay bulshada qof kale oo saameyn lahaay oo dadku wax badan ay ka faa'iidi lahaayeen وكان وقت ياسي خرج كاسي الحكاس كلها هم يوصل أنت سكوا هذا بالشدة الصومالية هراي بانو شجعيو شلي مركي أو عوضي ونكان كعوضي دقالة حقيسة أنتي تاجري سي بصدير مقالدي سكوحر ليد waxay u badnaayeen kuwa yiraahdo warniguweed iyo warniguweed kula kala laaray adaa ninka ka jeefroone ninka wadankii keen marka rabitaan ay iyagu codsi ay codsadeen rabitaan ay iyagu rabeen baan ku keenay wadanka mana oranayo anigu waxaas maxaa looga faa'iidi waayay iyo maxaa laga faa'iidayaa midna oran mayo sababtu waxa weeye Basadiir ninku yahay Soomaalidu way ogay waa nin komandiyana muuqaalo soo gudbiya ha jiraan hadeer dad yiraahdo ninkaasi waxba laga faa'iidayo oo ma garan karo anigu bulshada meel wax ugu soo gudbin karo oo asaga gaar ahaan wax uga faa'iideyn karo maadaama muuqaaladiisu ay yihiin kuwa anigu aan isticmaalo oo Soomaali aan ka dhigo aadna ay runtii ugu xiran yihiin oo uga heleen marka hadda Basadiir si waa loo dhaliili karaa waa qof caana waana la taageeri karaa oo taageero badan buu leeyahay runtii waxaan waxa kale soo badan isweydiinaya ma waxay tahay marka Basadiir خاصة إلا إلي أصل وحنا فرحان Basadiir waa keenay إلي أصل sababta uu soo tagay bal maxay tahay isweydiinayaan bulshada إلي أصل sababta looga soo tagay waa mid aniga iga soo gooday Basadiir safar buu ahaa marti buu ahaa go'aana uu ku soo kaxeeyay iyo awood dhaqaale uu ku soo kaxeeyay oo ku kabi karo isagu ma lahayn laakiin iyagu waxay rabeen sida uu isagu u rabay inay u soo baxaan aniga se waxaan u baajiyay oo hawshaas aan u furin waayay marka kaliya dadkan way naga dhaqan duwan yihiin oo magaranaysa Soomaaliya iyo Tansaaniya dhaqankeeda waxba u dhaxeeya xitaa xilliga muuqaalka ay duubanayaan iyagu ha joogtay marka aniga ay ila soo hadlayaan oo magaranaysa ama Basadiir ha soo sagootiyeen ama iyagu muuqaal aniga ay maaragtay khaas ah dad wada shaqeyn naga dhaxaysa aan hay soo diraan oo magaranaysa muuqaalo hambaliya ama wax kala dabcan xilligaas oo kale waxa khasaba oo ku khasba
in ma garanaysaa ay xijaabka ama maryaha baatiga ay xijaabka laga dhigto oo dhaqanka Soomaaliyeed matalaya inaan maaragtaa u xiro marka xogaa jujuub bay dareemayaan haddii ayagoo halkaa jooga aan xijaab maalin walba u geliyo inaan halkaan inta keeno maalin walba xijaabkooda iyo hawshooda dumar weeye waxyaabo badan ay u baahan karaan ma garanaysaa dhibaato badan ka iman karta waxyaabo badan baa ka iman karta marka waxaan ku khasbanaaday in cidda kaliya oo la keeni karo wadanka ay noqon karto basadiir oo isagu uu fudud yahay basadiir weyn farxan waxaa jira muuqaalo ay soo qaadanayeen dadka YouTubada ama gabdhaha bulshada aad ku isticmaala kuwaas oo ay ka muuqdaan si aad u dhaqmo ninkan soo khamri cabahayo oo kale aduna waxaa tahay farxan oo meesha wadanka ninka keeno arrintaas maxaa ka jira maxaa kale arrinta waa kala qaadaya dhowr qodob baan u kala qaadayaa oo qodob waxaan kula hadli doonaa warbaahinta ama wiilasha dhalinyarada Soomaaliyeed oo YouTuberka midna waxaan kula hadli doonaa kaga hadli doonaa muuqaalkaas iyo aniga Soomaaliya inta uu basadiir joogo waxa uu ka gudbiyo oo muuqaal khaldan ah mas'uuliyadeeda iyo khaladkeeda horta in aniga la saaro waajib aan leeyahay mana diidan laakiin waxaan rabaa in wax la kala hubiyo muuqaalkaasi ay bulshada ogaadaan inuu yahay mid bil ka hor ama 2 bilood ka hor inta uu wadankiisa joogay aniga basadiir inta uu Soomaaliya joogo muuqaal uu ku duubo oo iyo meel uu fursad u helo iska daayay marka aan rabo in aan magaalo u saarno mas'uuliyadda iga saaran isaga inaan gaari baruuf ku qaado oo ku geeyo magaalada oo ciidanka haysta ma saaro sababtu waxa weeye qofkan isagu saameyn kasta kula hada dalkiisa waxba igama garin laakiin marka aan marti yahay ummadda Soomaaliyeedna marti uu yahay marka meesha aan geynayo sida darteed waxaan hadalka ula jeedaa meesha aan geynayo waa meel la hubo 100% inaysan maaragta awsan waxba ku samayn karin hadalka nuxurkiisu waxa weeye ninkan mas'uuliyad soo dhamaan gacanta ku haya muuqaal khaldan iska daaya hal sawir oo khaldan ma geli karo dalkana kama gudbin karo Soomaaliya waxaan u sheegay inaysan kalaab ku ool waxaan u sheegay inaan laga ogolayn khamri in lagu isticmaalo dad Soomaaliyeed oo isticmaalo way jiraan laakiin anigu waxaan inta u diidayaa maadaama aanu nin dhalinyaraayo iska ma garanaysaa mas'uuliyad weyn saaran tahay oo arrimahaas oo kale ay isaga xogaa ay ku noqon karaan ma garanaysaa dhaawac inta ninka aniga ila joogo Soomaaliya hotelkiisaas ku jiraya xilligii uu meel u baahdo dalxiis waa loo kaxaynaya kadibna dalkiisii baa loo diraya ma ogoliya hal kaliya oo Soomaaliya aw meel xitaa dhiiqa yara taala inuu ka duubo oo uu diro aniguna ma aqbalayo haddii aan aqbalana dee waxaan noqonayaa khaa'in wadan baa la yiraahdaa qofkaas kale yani qof wadankiisii khiyaamay baa noqonaya midna waxaan leeyahay waxa ii hartay iga raali ahwadi midna waxa ii hartay wariyaasha Soomaaliyeed baa leeyahay wariyaashu waxay soo qaateen runtii muuqaalkii basadiir oo isagu horay isaga difaacay inuu wadanka ku isticmaalin oo dalkiisa ku duubay طبعا muuqaalkaasi in badan bay yani dhinacyo badan oo ka dhaliileen muuqaalkaasna waa kaga hadleen basadiir waa la dhaliili karaa waa caan anigana waa la dhaliili karaa mas'uuliyadda dalka qofkii keenay anigu ahaa mas'uuliyad baan ku qaadaya hadduu wax khaldan dalka ka sameeyo mas'uuliyaddeeda anaa la saaraya oo khaladkeeda iska leh marka wariyaasha waxaan leeyahay dhalinyaro tihiin aniguna nin dhalinyaro baan ahay wadankana waynu wada leenahay mas'uuliyaddiisuna way ina wada saaranta warbaahinta wariyaasha dhan la hadlamayo rag isku jireen rag gaar ah way rag soo qaatay macnaha inta soo qaadatay baan la hadlaya inta soo qaadatay waxaan leeyahay dalka waa wada leenahay mas'uuliyaddiisuna waa ina wada saaran tahay aniguna waa idinkaga lex jecla badnahay way u badan tahay inaan idinkaga lex jecla badnahay sababtoo waxa weeye wali Soomaaliya kama bixna anigu inaan haddii aan ka tagay xitaa magaalada weyn geelay baan ahay oo golaha geelayga inaan aado ma ahane meel kale ma aado marka waxaan leeyahay wariyaasha waxaan leeyahay YouTuberada Soomaaliyeed dhaliishaas wixii yani khaldamo oo dalkeena khalad ku socda inaad ka hadashaan xaq waad u leedahay dhanka kale markii loo eegana hadee shaqadiinaaba oo yani inaad wax ka hadashaan oo barnaamij soo gudbisaan baa rabtaan dad baa idinku xiran
waa shaqadiinni baa ku xiran marka taas idinku dhaliili mayo laakiin waxaa idin leeyahay dalka waynu wada leenahay waynu wada ilaashanaynaa waa idinkaga lex jecla badnahay weliba idinku waxaa laga yaabaa qaarkood inay ka maqan yihiin waddanka ana weli youtuber waddanka joogo ka hadlaya ma arag inta ka hadasha waa in ka maqan marka waxaan leeyahay waddanka waa idinkaga lex jecla badnahay aniguna weli waa ku sugnahay oo kama bixin ama xabad ha ka dhacdo ama qarax ha ka dhaco weli waan joogaa amaasta qaran ku weydiiyo waxaad aniga leeyahay abwaan dadku muuqaalada aad u shaac tira badan intii aad basadeen muuqaaladiisa waxaan samaha doonaan lahayn in adigu muuqaalo adiga laftikaaga ama mid kale oo Soomaaliya ama dhalinyaro kale oo Soomaaliya inaad samaysaan intii aad mid kale oo ajnabi ku tirsanaan lahayd muuqaaladiisa anigu horta ugu horeyn kuma tiirsanay warbixin yar baan ku siinayaa anigu kuma tiirsanay YouTube-ka min dhalinyaro ganacsada baan ahay meelo badan yani ka shaqeeya marka YouTube-ka kuma tiirsanay sidaa darteed waxay noqonaysaa muuqaalada ninka ajaanibka aniga kuma tiirsanay muuqaalada aan sameeyo inta hadda ka hor waxaan isqabanay Basadiir aniga Basadiir waa isqabanay wuxuu xiray ma garanaysaa muuqaaladii yani straight bisaaray kadib waanu ka heshiinay taas laakiin intaanan heshiin baan dadka Soomaaliyeed kala hadlay waxaan idhi warninkii isaga ahaayo muuqaalada ugu horeyn ay idinka soo duubi jiray cod baan idin soo saaray nin ajaanib ah muuqaaladiis iyo gabdho idil iyo asr iyo alaaba aan ula baxnay magacyo qaangaar ah aad baad uga hesheen runtii haddaad ka hesheenna runtii waad taageerteen bulshada Soomaaliyeed aad bay taageereen muuqaaladii iyo codkii markii la isku daray wixii dhaqan Soomaaliyeed laga dhigay aad iyo aad bay taageereen runtii waan uga mahad celinayaa 100% isqabashada iyadii kadib aniga iyo Basadiir waxaan ku iri ninkii waa isqabanay marka haday suuragal tahay halkan waxa idinku soo gudbin doonaa muuqaalo anigu aan leeyahay ayagu aniga ixtiraamaya oo bulshada runtii ugu xiran aad baan ugu mahad celinayaa waa dad 100% aad ii taageera xitaa marka meelaha qaar laga yaabo in qof wax boosti si khaldan uga soo hadlo runtii sida ay uga jawaabaan ama uga falceliyaan ma halkan waxaan ku soo koobi karaa ma difaacooda marka maalinkaasi waxay bulshadu go'aansadeen inay aniga i taageeraan oo wax walbo aan keenay ninkaan bashalay adigaana baray maantana waxa weeye haddii aad isqabateen dhib male adaan ku sugaynaay bal wax noo soo tabi way jira dhowr muuqaalo aan soo sameeyay kadib ninkii heshiiskiisii baan u soo gudbiyay sidoo way soo dhaweeyay سلامة سيدي وكان أسود وين إلا هذا السيدي بان كورنا أو شغلي كسعتا وأنا نتاجر سيء. ودمنتي محل هذا كثيرا الصوماليين يعني بصدار تاجر محل. برشة الصوماليين وحلا هاي أرتهرنتي عادي عاد بلغم هاد علينا إني ماركتا بوجيجا كحرينين يوتيوب فيسبوك all سفي عنا يسبوت كريان ويتاجران. وحنا نرلها. شلي Basadiir idinka yiri dalka keen oo qori xaram leeyahay ninka wuxuu diro dagaalaha ka bixiyo dalka keen waa keenay waa saaciday waan ka bixiyay dalkii baan keenay maantana qaar idin kamid ah waxay leeyihiin ninkii dalka ha laga saaro marka bal dhinac aan u wada hagaagno waxa weeye anigu idinka wax idinku ahay bal hal dhinac hal jiho aynu u wada hagaagno hadii alla idmo Basadiirna mar walba isagu baxaya inaga isku harayna Basadiir mar walba uu baxaya dalkiisiiba aadaya ummadeena Soomaaliyeedna waxaan jeclaan lahaa xitaa hadda khalad kuba u kicin Basadiir laakiin hadduu khaladkaas kala dalka sameyn lahaa intaas oo dhan inaan lagu xadgudbeen baan jeclaan lahaa sababtoo waxa weeyaan dad dalkeena uu burburay markuu burburayna ummadeena waxay kala aadeen qurbaha meel kasta ee qaxootiga ku yihiin waa joogaan Tansaaniya waa dhooban yihiin walwalka ugu badan reer Tansaaniya qaba maanta hadii Basadiir wax gaaraan walwalka ugu badan shacabka Tansaaniya oo jooga ma garanaysaa shacabka Tansaaniya jooga Soomaaliyeed baa qaba marka waxa rabnaa waxyaabo cunsuriyada inaan iska ilaalino maadaama ninkan intuu wadankiisa joogo wadankeena uu joogo oo inaga marti inoo yahay martidana dee xeer gaar ay leedahay hidiye dhaqan baynu lahayno in geela la dhexgeeyo gaawo caana loo keeno codka ay xirano iga raali ahaad maanta iska hargabsanahay marka